gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD ahna madaxweynihii sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si faahfaahsan waxa uu uga warbixiyay kulankii dhawaan dhexmaray gudoonka golaha shacabka iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran kaasi oo qabsoomay 28 bishan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuusan jirin wax ajanda siyaasadeed ah oo gudoonka golaha shacabka ay u wadeen madasha xisbiyada qaran sidoo kalena aysan jirin wax ajanda ah oo madashu ay u dhiibtay gudoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan isbedelin mowqifka madasha ee la xiriira arrimaha doorashooyinka. ugu dambeyntii waxa uu bogaadiyay natiijooyinkii laga soo saaray shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowladda Galmudug waxa uuna ku baaqay in la ballaariyo wada tashiyada siyaasadeed ee hadda socda kuwaas oo uu tilmaamay in lagu gaari karo natiijooyin wax ku ool ah. walaalayaal maanta marxaladda maanta aan maraynaa waa marxalad kala guur ah waqtigii isbedeladu inay yimaadaan ay ahayd lagu ballamay hore loogu heshiiyey ayaa la joogaa. waxaan filaynaa in ayaduna si nabad ah oo wanaagsan oo Ilaahay nagu gudbiyo. hase yeeshee laba qodob oo kooban ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo. mid waxa waaye shalay iyo daraad waxa aad iyo aad su'aalo badan la iiga weydiinayay kulankii aan kulannay aniga iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa aan ku kulannay xarunta madasha xisbiyada qaran ee nagu soo booqdeen. dabcan madaxda dalka ayay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisu waxay ka mid yihiin madaxda hay'adaha dastuuriga ee dalkeenu leeyahay. dabcan wayna soo booqdeen markay noo yimaadeenna fariin gaara oo inoo sideenna ma jirin, mid gaar oo anagu aan u dhiibnana ma jirin, laakiin dad mas-uuliyiin ah dalkan taladiisa cod ku wada lahaan ahayn waa iswarsannay waana isu warbixinay waa isdhegaysanay salaan ayayna noogu yimaadeen waxay ahayd salaan. hase yeeshee dad badan ayaa siyaabo kala badbadan u rogay. walaalayaal madaxda dalku waa soo booqan karaan waana is salaami karaan meel kastoo ay joogaan, laakiin madaxdaasi kulankeena sidaas uu ahaa. wax badan ayaa laga sheegay laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u cadeeyo salaan iyo ismarxabeyn iyo kala warqaadasho iyo waxaan ahaynay xog isiin, laakiin ajanda siyaasadeed oo ay wadeen oo ay noo keeneen ma jirin. ajanda siyaasadeed oo aan anagu ayagu u dhiibnayna ma jirin. marka dadka Soomaaliyeed saas ahaan madaxdaas iyo madaxda kale oo dhan dalkana waa la is wada arkayaa, mar walba waa la wada fariisanayaa. dabcan markay ugu yaraatana warbixinna waa la kala qaadanayaa. xaaladda dalkana maanta meesha ay joogto waa maantii la isu badnaa lahaa, la kulmi lahaa, laga wada tasha lahaa arrimaha. intaas kadib waxaan rabaa mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo aniga ka madaxweynihii hore ahaanba annaga mowqifkeena waxba iska maanaa bedel meeshaan joognaa. waxaan rabnaa dalku inay doorasho ka dhacdo, waqtigeedii ay ku dhacdo, mid laga wada tashaday oo laysla aqbalayna ay ahaato doorashadaas oo aan lagu kala qaybsamin lagu kala leexanin. annaga hadafka aan leenahay waa intaas. way bilaabatay maalin dhaweedna waan sheegnay kulankii Dhuusamareeb ka dhacay ee 1 iyo 2 wuxuu ahaa bilow aad iyo aad u fiican, ididiili iyo rajo dadka dhan geliyey, caalamka geliyey, Soomaaliya wanaagga la jecel. waxaan leenahay weli madaxda iyo dadka Soomaaliyeedba ha sii dhiirigeliyaan. madaxdana waa ku dhiirigelinaynaa, annaguna waa isu dhiirigelinaynaa, waan iskula dardaarmaynaa inaan arrintaasi sii xoojino. kulamada dambe ee Dhuusamareeb ee imaan doona ee lagu ballamay iyo kuwa kasii dambeeyana inay guuleystaan ayaan u rajaynaynaa. waxa kaliya aan ku dareena waxay tahay kulamadani meelay ka soo bilowdeen madaxda dowlad goboleedyada is arkay. markay is arkeenna waxay u yeerteen muxuu ahaay madaxdii dowladda ayaa ka qayb gashay qaybo kamid ah oo hay'adaha dastuuriga hoggaankoodii madaxweynihii ra'iisul wasaarihii wixii ka qayb galeen. waxaan rajaynaynaa kulamada dambe sida ay ku habboontaan horan u sheegna haddana ku celinayno in la sii ballaariyo oo dad intaas ka badan oo Soomaaliyeed la talageliyo la iswarsado. maanta waxay taagan tahay meel ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed in ay xalka mushkiladda maanta taagan ay dacalada ka wada qabtaan. waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ee madaxda la doortay iyo kuwa kaleba
mas-uuliyiinta ah ee xisbiyada qaran ay ka mid yihiin maxaan ku rahaa bulshada rayidka ay ka mid tahay oo maxaan ku rahaa dhaqanka Soomaaliyeed oo cid walba waxay leedahay waxay qayb weyn ka tahay kana noqon kartaa xalka sidii lagu gaari lahaa u malayn maayo maanta cid Soomaaliya oo u taagan mushkilad inay qayb ka noqoto jecel ma jirto qof walba wuxuu jecel yahay xalka inuu qayb ka noqdo sibaanu u arkaa sidoo u arko inuu laga dhageysto oo uu sheego oo laga qanciyo ama lagu qanciyo midda kale ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay gogosha hal la ballaariyo hal la waasiciyo dadka Soomaaliyeed intooda muxuu ah codka loo dhan loo furo waana hubaa hadii sidaa la yeelo in wax Soomaalidu ay raali ka wada yihiin horeyna noo qaadayo ay wax badan oo dadka Soomaaliyeed waqti uga dhumaay muhiim ma ah doorashadu waqti ay lahayd waqtigeedu waa ku dhacda waa inay ku dhacda waxaan aaminsanahay sida aan sheegaynay ee taladaas hadii wadadaas la marana oo hore loo soo tijaabiyayna in waqtigeedu lagu qaban karaan aaminsanahay in waqtigeedu lagu qaban karo ayaan aaminsanahay hadii loo istaago in lagu qabto laakiin hadii rag ay rabaan in ay maxaan ku yiraahdaa xoogaa ay muxuu ahaay garabka saartaan u gaar ah ma suuroobayso hore ayaa loogu soo noogay xagala geel wax gunta lagu qariyo waa ka weyn aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi Yusuf Maxamed Axmed Galmudug TV Muqdisho.